السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بإذن الله تعالى ما أنت وحين قادمتنا قصة الصابصان يعني ديلك dadka qaar baa waxay siyaadaan waqti wax dila dabatana baxsada laakiin se waxa weeyaan qofkaas baydoodu ma baxsan karaan oo wala qabtaa markaa waa maxay yeelay waa qof naf dhan gooyay waxa weeyaan sida waxa weeyaan xadiistu sheegayso diiqad iyo ciidigu galaya adduunyadu waxay ku noqonaysaa baabacada ilaa marka sidoo u meeraysanayo meelaha waxa weeyaan soo leey baxso inba meel yar oo gaaban laga soo booda haddaba qisadani waxay ku saabsan tahay axad shu'ara nin ka mid ah rag gabi jiray ee carbeed ayaa wax uu safar buu baxayay marka qofku amaano sidii xoolo amaana buu qof u geynayay oo marka ay saaxiib yihiin shaacirkuna wuxuu lahaa laba gabdhood buu lahaa ama laba hablood buu lahaa ka bacdina wuxuu ku yiri labadii gabdhood baa wuxuu ku yiri intii aan wax way amba bixin ama safarkii u bilaabin buu hadii Allah qadaro subhanahu wa ta'ala oo qadarta ilaahay timaado oo wadada ligu dilo buuri hadii wadada ligu dilo waaya waxaad samaysaan buuri aargudashadayda waxaad iigu aargudaan oo dilkayga ka dambeeya qofka shadrul bayt kan akhriya shadrul bayt waa gabay bar kamid ah shadrul wax weeyaan gabay hada jeer waa laba qaybood qayb hore iyo qayb dambe marka qofka qaybta u horeysa akhriya ayaa maxay ahaydee ayaa idilay qofkaas ay igu argu doontaan marka wuxuu oranayaa buuri ala ayyuhal bintani in abakuma ala ayyuhal bintani hablayahow labayo hablood in abakuma bihin laakiin idinku maxaa oranaysaan qatilun khuda bi tha'ri mimman ataakuma qatilun qof la dilay khuda bi tha'ri ugu arguda mimman ataakuma kayin ma doon qofkii buu sii sheegay marka isagu waxbuu oranayaa ninkan wax dilayaa taas ayuu ku fahmintaa markuu hadalka ay dhaahdo iyaguna hadalkan bay oranayaan qatilun khuda bi tha'ri mimman ataakuma abood baa saa ku siiyay marka qof la dilay ugu arguda cid ay intimaad okay wa bil fi'li sida dhabtaana markii waxa weeyaan markii uu ninkii shaacirka ahaa aan baxay isagoo dariiq ku jira ayaa nin tuuga ayaa markaa wadada u galay oo yimi oo dadna u hanjibay oo yiri waxa waxaad maal haysato halka dhig waaya ninkii shaacirka wuxuu ku yiri amaana sida qof baan u wadaa haddaad doonaysid maalkaygii meesha caynkaas ayaan degaa laba hablood baan leeyahay labadayda hablood u tag oo waxaad ku tiraahdaa ala ayyuhal bintani inna abakuma gabdhayahow labadiinan gabdhoodow aabihiin markaad intaa tiraahdo waxay ku siin doonaan maal waxa la wax doonayso saas buu ku yiri ilaa waa tuug iimaan leh ninkii ma oran waa yahay iska tag ma oran horta isagii buu dilay intii uu hayay buu qaatay dabeetana waa soo lugayo xaqii buu soo kacay marka wax weeyaan gabdhihii ku noolayna u sheegay ninkii odayga ahaa maxaa yeelay wuxuu intan iguma filno intii odaygu sidii way la yaraatay wuxuu yiri maalka badan ee uu sheegay hadaba waa inaan soo qaadoon hablaha u tagaan dhada keena sidii buu sameeyay shaacirkii ninkii shaacirka ahaa hablihii buu markaa la hadlay la kulmay waxaana ku yiri intii uu sii sheegay ninka shaacirka ya ala ayyuhal bintani inna abakuma ala ayyuhal bintani inna abakuma hablayahow aabihiin waa shadri de ma dhamaystiran bogti ya ma dhamaystiran gabay dabeetana maxay yiraahdeen وقبل أن يكمل كلامه صاحت الابنتان قائلتين قتيل خذا بثأر ممن أتاكما intaanu hadalkiiba ka soo bixin afkiisaba ayay iyaguna yiraahdeen intii abood si sheegay hayd qatilun khuda bi thari mimman ataakuma yani qof la dilay ugu aaracida intii maanta waxay sabay marka way qayliyeen dadkii baa soo yaacay marka ku soo ururay meesha dabeetana way qabteen si xun bay u garaaceen dabeetana waxa uu keenay xaakimka ayuu keenay sidii baana lagu qisaasay ninkii marka waa sheek wallahu a'lam laakiin waxay ku saabsantahay يعني سيدا آنو ديق وقرصومين هذا ديق شو أما قفتي شيء إن هذا كنا لقبان تونا مال ما كبيرة ولو قصاص تونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.